ururka daryeer oo kamid ah ururada samafalka ah ee ka howlgala degmada Wadhawr ee gobolka Cayn ayaa xarun caafimaad oo MCH loogu talagalay hooyadii dhalaanka waxa uu ka dhagax dhigay degmada Bayaal ee deegaanka Buuhoodle munaasabaddii lagu dhagax dhigay MCH ka loogu talagalay hooyada dhalaanka waxa ka qayb galay cuqaasha waxgaradka iyo mas'uuliyiinta ururka daryeer ee deegaankaasi Bayaal waxayna ka warbixiyeen muhiimadda loo dhagax dhigay xaruntan caafimaad ee deegaanka haatan laga hirgelin doono. maanta way bishu tahay 22 bishii tobnaad 2017 waxaanu joognaa magaalada Bayaal waxaanu maanta u nimid inaan dhagax dhigno anagoo ku hadlaya afka ururka daryeel oo ah urur samafal oo dhalinyaro u dhalatay deegaankan oo dalka dibadiisa iyo gudihiisa joogta ay ku midaysan yihiin inaanu dhagax dhigno MCH degmada Wadhawr degmada Bayaal MCH-keedii inaan dhagax dhigno aan horay u lahayn rug caafimaad markaan aragnay dhibaatooyin badan oo ka jira oo ay ka koob yihiin markii wadankan uu ka dhacay xanuunku shambiyoodku ka dilaacay aad iyo aad dadkii halkan ay ku silceen waxaan istusnay inaan u sameeyno xarun caafimaad waxaan leeyahay intii ka qayb qaadatay way ku mahadsantahay ee ku midaysan ku jirta ururka daryeel inta ka maqan sida ururada khayriga ah ee aad iyo aad uga shaqeeya deegaankan ee ka soo jeeda sida ururka Samadoon oo wax badan ka qabtay magaalada Bayaal aan mar labaad ugu celiyo maantana way idin baahan tahay Bayaal inaad wax ka qabataan sidaad wax uga qaban jirtaan uga qabataan waxaan kaloo isna la hilmaami karin oo aan xusaya ururka anfac oo in badan deegaanka wax weyn ka qabtay ururada ugu tayada badan ah dhammaan ururada bulshada dhammaan iyo ururada rayidka ah inay ka soo qayb qaataan hadii alla idmo sidoo kale waxaanu ku boorinaynaa deegaanka inay ilaashadaan marka loo dhiso haddii alla idmo ururka daryeel isagu ballan qaadaya inuu dhagax dhiga iyo inuu haddii alla idmo sii wadaba labadaba sidoo kale waxaan u mahad celinayaa ururadii hore uga shaqeyn jiray deegaanka waxaan anigu halkan uga faa'iideysanayaa maadaama aan bahda caafimaadka ahay meeshan waa MCH waxaana loogu talagalay hooyada iyo dhalaanka si loo yareeyo morbidity iyo mortality ama dhimashada iyo xanuunka hooyada iyo dhalaanka waxaan ugu baaqayaa cid kasta waxaan horta u mahad celinayaa Ilaahay ka sokow ururka daryeel oo ah urur dhalinyaro hawshan maanta soo keenay waxaan rabaa inaan ugu baaqo ururka aan anigu ka mid ahay ee weyn ee deegaanadana ka shaqeeya ee la yiraahdo Samadoon madaxdayda waxaan ugu baaqayaa idinkoo horeyna deegaanadan wax badan uga qabtay Ilaahay khayrayn siiyay inaad soo dhameystirtaan anigoo Adeeq Maxamed Goox waxaan ku deeqay oo aan siiyay deegaankayga iyo magaaladayda dhul dhan 3 balood dhulkaas baan bixiyay wixii kala tabarteedana waa la garab taagnahay wixii Maxamed Goox waxaanu ka gudoonay 3 balood dhul dhan oo rug caafimaad uu u bixiyay oo uu ugu deeqay deegaankiisa iyo dadkiisa jazakallahu khayr waxaan waa u ducaynaynaa waana u ducaynay waxaanu jecelahay inaad noola soo ducaysaan waxaanu doonaynaa dhammaan waxa laale wixii wax qabad leh islaamka ah ummadda dhamaanteed in wixii wax ka qaban kara ay wax ka qabtaan oo lala taageero annana aanu la taageero على عثمان سعد الدكتور ورقة الفيش على مجلس مان نيوز تيجان كبنيال بوهودله